السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaynu si degdeg ah insha Allah u dul carari doonaa toddoba arrimood oo ninka kantaroola ay noloshu macaanaato. sidoo kale toddobadani nolosha uma qurxiyaane qodobo kamid xataa waxay anfacayaan marka uu dhinto ee la kulanka alle ay iswajahaan. haddaba aynu istu taagno ta koobaan ninku haddii uu kantaroolo biyihiisa taranka. sababta qodobkan aynu soo horeysinay qodobo ka muhiim ah ayaa jire waxa weeyaan waxa uu quseeyaa mowduucyada ugu horeeya ee inta badan aynu soo bandhigno ayuu ku jiraa. marka kantaroolka biyahaaga horeynu u tilmaamnay techniques baa la isticmaalaa. ninkana waxyaabaha ku keena biyo baxa degdeg ah waynu taataabanay muqaala kalena insha Allah waan ka sameyn doonaa. si kastaba ha noqotee haddii aad ku guuleysato inaad kantaroosho biyahaaga waxa tahay hadal kugu daalin maayo lan jambaa tahay biyaha oo la kantaroola qoyska meel aad u weyn bay kaga jiraan. waa laga yaabaa inay dadku ay dhayalsadaan laakiin xilliyadan dambe ee casriga la yahay haweenku wax badan ay fahmeen qancin baa lagaga baahan yahay. qancintana biyahaaga soo daadanaya suuragal ma noqonayso. marka biyahaaga inaad kantarooli karto waliba saacado ku filan iyo xilli ku filan waa muhiim. arinta labaad iyadana runtii muhiimka ah waxa weeyaan in aad kantarooli karto xubinkaaga taranka gaar ahaan waliba xilliga aan reer ka lahayn. xubinkaaga taranka inaad kantarooli karto waxaynu uga jeednaa shahwadaada iyo hamadaada inaad kantarooli karto. waxaad kantaroolaysaa laba xilliba adigoo xaaslana waad kantaroolaysaa oo sababtaad u kantaroolaysaa waxa weeyaan inaanad galmada aanad badsan. adoo xaaskaaga ay kula joogto galmada inaad basato caafimaad kuma taageerayo. marka aanad lahayn xaasna waxa lagaga baahan yahay inaad shahwadaada aad kantaroosho si hadhowto ay ku anfacdo oo aad kayd kugu ahaato oo hadhowto aad u aydo. arinta saddexaad ee kale waxa weeyaan inaad kantaroosho cadhadaada. tani sida personality-ga bay qofka u qusaysaa oo qofku inuu cadhadiisa kantaroolo noloshiisa anfacaysaa. sidoo kale waxay anfacaysaa qofku geesinimada la tilmaamayaa inay tahay geesiga dhabta ah qofka marka uu cadhoodo iskantaroola ee dhibaatooyin kale inaanu ku dhicin iska qabta. arinta afraad waa cududa oo imika aynu ula jeedno qofku inuu kantaroolo gacantiisa. gacanta waxaynu u jeednaa maaha qofku inuu xooggiisa xistiyayo iyo gacantii inuu xidhayo oo dadkii aanu waxba siinaynin oo aanu faxal ahayn ee waxaynu ula jeednaa inuu qofku gacantiisa dhibta uu ku geysanayo uu dadka ka ilaaliyo oo uu ka dhowro. oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamay man salama almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi. almuslim qofka muslimka ahi waa qofka ilaaliya carabkiisa iyo gacantiisa. qodobka hore cadhadana rasuulku sallallahu calayhi wasallam xadiis saxiixaynka ku yaala oo mutawafaqa waxa uu ku sheegay laysa ashadiidu bisur'a inma ashadiidu alladhi yumliku nafsahu 'inda al-ghadab. marka ninka geesigaahi ma aha ninka lagtinta ku fiican ee waa ninka marka uu cadhoodo naftiisa kantaroola. qodobka shanaad waa financialka ama waa dhaqaalaha. ninku inuu kantaroolo dhaqaalihiisa oo qoladan marka aynu dul taaganahay dhinaca economic theory-ga waxay tilmaamaan qofku haddii uu leeyahay kaydsan dhaqaale waxa uu qaaday wadadii guusha. oo tusaale ahaan oo kale qofka expenseskiisa iyo incomekiisa ayay inta badan calculate gareeyaan oo waxa ay yiraahdaan qofka haddii $100 soo galay bishii oo uu isticmaalay $40 oo uu dhigtay ama uu kaydsaday $60 qofkaasi waxa uu si toos ah u qaaday dhabaha guusha iyo taajirnimada nolosha. marka dhaqaalaha ama ninku inuu kantaroolo waa mid muhiim oo nolosha u qurxisan. arinta lixaad waa carabka oo carabkaaga dadka inaad ku dhibto aad ku caydo ood ku aflagaatayso ood waxyeelo iyo dhibaato ugu geysato isagana khatar nolosha kamida ayaa kaaga imanaya. noloshaadana cidhiidhi buu gelinayaa. marka waa halis cadkan yar
afka inagu dhex jira khatar buu keenaa xilliyada qaar oo hadal tiri ayaa dad badan laga yaabaa noloshaba inuu quusiyo oo noloshaba uu ka baabiyo oo qalbiga uu ka jabiyo oo qofka xataa uu geeyaba inuu adduunka ka tago marka carabka iska ilaaliya carabku aad iyo aad u khatar u yahay ninka controlana ee uu controla inuu ka ilaaliyo waxyaabaha negative-ka yani waxyaabaha qofka dhibaateynaya ama waxa cayda ama waxa xun ka ilaaliya ee qaabka uu controla isaguna nolol wacan buu ku noolaadaa adduunka qofka ugu dambeeya waa caloosha halka runtii dhibaatadu ay ka taagantay waa halkan caloosha markaynu ka hadlayno caloosha waxa la yiraahdaa 70% mararka qaarna 80% baa la soo qaataa qofku waxa calooshiisa ku dhaca ayaa caafimaadkiisa ku xiran yahay waxa calooshiisa ku dhaca ayaa caafimaadkiisa ku xiran yahay cuntaduna waxa ay leedahay dhibaato markasta oo cuntadaada aad control weydo oo calooshaada aad control weydo waa markasta oo cuntadaasi ay jidhkaaga ku sameynayso faa'iidada nafaqada ay siinayso iyo sidoo kale cuntada waxyaabaha ka dhalanaya ee jidhka ku kaydsamaya ee la yiraahdo bad substanceska luqadda caafimaadka ee dhaawacaya beerkaaga kaliyahaaga xididadaada wadnahaaga iyo guud ahaanba jidhkaaga ilaa maskaxdaada ayaa iyaduna khatar kala marka markasta waxa afkaaga kaliya inaad controlsho isla markaana directa faraha badan inaad iska yarayso directa faraha badan qofka uma wanaagsana caafimaadkiisana uma wanaagsana bulshahaana uma wanaagsana dhaqaalahaana uma wanaagsana xataa diinahaan uma wanaagsana marka intaas ayaynu ku soo ururinaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.